The international media did not show up en masse for the slaughter of the Isaacs. Barry's atrocities were largely ignored, but Isaac artists captured their plight. All-out civil war eventually erupted in 1988, when a mainly Isaac resistance group called the Somali National Movement, the SNM, briefly seized Hargeisa and other towns. Barry ordered Soviet MiG jets and American-built tanks to level the city. But it wasn't enough to save his regime. In January of last year, Barry fled to Kenya. His bodyguards gunned down and left to rot outside the presidential palace. In the north, the Isaacs inherited a dying land. In Hargeisa, once home to 500,000 people, 50,000 houses. Like, here you can see how his own language is talking about the city. burburka baaxadda leeg ee idin muuqda ciidamadii diktaatoorkii maxamed falkan magaalada ee fooshaxin magaaladu siday u dhan tahay waa sida aad arkaysaan iyo si ka daran aargudasho ilaa naxariisa ummaddan ay ka eriyaan kana xoreeyaan ummadda soomaaliyeed dulliga iyo dalxumada saaran markaasi waxa uu noqday ayatiinkii ummadda soomaaliyeed si aad arkaysaan waa falalkii aargudasho mar kasta oo xabadda waa taas idin muuqata ummad cadow ama qalad samada xaalihii ummadda soomaaliyeed iyo tacabkoodii sida loo burburiyey ninka dalka sheeganayay inuu madax ka yahay ee uu mas-uul ummadda soomaaliyeed ka yahay waa ka sidaa u burburiyey iminka ayaad moodaa in magaalada lagu soo noqnoqonayo kabacdi nolol ah oo haatan suurtagal ka ah meeshan biyo ma jiraan leed ma jirayay ee ay baabuurta maraysay sida ay dhultooda baxday waa magaalo dhowr sano dibadgalan ahayd oo markii dambena isku bedeshay kaymo muuqaalka aad u jeedaan waa masaajid kaldayac ninka ummadda soomaaliyeed ay la dagaalamaysay waa ninkaa masaajidadii ummadda islaamkii ay ku tukanaysay ayaa sidaa loo burburiyey waxa wataa aragtidii magaaladu ku tusaale qaata waa taariikh ka mid ah taariikhaha diktaatoorada adduunka kanina